وعن داوديال qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso waxa u dooran taliyaasha ciidamada oo booqday xirooyin ciidan odayaasha dhaqanka cadaado oo ogolaaday inay la kulmaan ra'iisul wasaare Kheyre madaxweyne Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo kulan yeeshay diiwaangelintii ciidamada degmada Balanbale oo la soo gabagabeeyay wafdi beledweyne u tagay xalinta xiisada ka taagan dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga oo kala saxiixday heshiis cusub maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amaro dhanka amniga iyo wasiir ku-xigeenka amniga oo kulan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dalka Ukraine intaas waxaan qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso kuudu ugu doorkana haddii aad ku cusub tahay saaxiibadeena barteena YouTube ka fadlan subscribe dhig gujiga malaalka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay markana ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan taliyaasha ciidamada ayaa booqday xirooyin ciidan wafdi isugu jira wasiiro dawlaha gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidanka qalabka sida ayaa booqday xiriyo ciidan oo ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug taliyaha ciidanka xooga Soomaaliya Saraakiil Daahir Aadan Cilmi Naqarshe ayaa boqolaal askari oo ka tirsan ururka gulwade qaybta 22aad kula hadlay xarunta badga gudaha Gaalkacyo waxa uuna ku amaanay ciidamadaas isku dhafka ah shaqada wanaagsan ay ka qabteen nabadgelyada magaalada Gaalkacyo tan iyo markii la aasaasay sidoo kale saraakiisha ayaa soo martay xeerada ciidanka booliiska Gaalkacyo xarunta daraawiishta xabsiga dhexe iyo xarunta ciidanka asluubta wasiir dawlaha gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa ayaa ugu dambeyn amaanay qaybaha kala duwan ee ciidanka amniga sida ay u gutaan waajibaadkooda iyo nabadda ka muuqata magaalada Gaalkacyo oo ah mid lagu dirsaday wasiir dawlaha gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidanka qalabka sida ayaa hore u tagay xirooyin ciidan oo ku yaala magaalooyinka Dhuusamareeb Cadaado Balanbale iyo Cabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud odayaasha dhaqanka Cadaado ayaa ogolaaday inay la kulmaan ra'iisul wasaare Kheyre magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxa kulan ku yeeshay wasiir dawlaha howlaha guud iyo dib-u-dhiska xukuumadda Soomaaliya odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado isagoo wasiirka uu kala hadlay sida ay ula kulmi lahaayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado ayaa shalay diiday inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyaga oo sheegay inuu uga baxay ballamo hore oo la galay wasiir dawlaha howlaha guud iyo dib-u-dhiska Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa odayaasha dhaqanka Cadaado ka dalbaday inay muhiimad tahay in ra'iisul wasaaraha kala hadlaan tabashada ay qabaan waxa uu sheegay in dadka deegaan magaalada Cadaado ay xaq u leeyihiin inay soo bandhigaan cabashadooda waxaan odayaasha dhaqanka u soo jeediyay inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha warar ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ay ogolaadeen inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha isla markaana ay u gudbiyeen cabashada ay qabaan ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa la sheegayaa in markii saddexaad uu ku laaban doono Cadaado isla markaana uu la kulmi doono odayaashii waxgaradka magaaladaas madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa la sheegayaa in kulan ay yeesheen weli waxaan xal laga gaarin xiisada ka dhalatay xilka qaadistii madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu ku sameeyay gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxaana xalinta xiisadaas beledweyne u tagay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Usmaan Barre Maxamed waxa uu ka bilaabay kulamo uu uga gol leeyahay xalinta xiisada u dhaxaysa madaxweyne Waare iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Usmaan Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in isla maanta uu bilaabay kulamada xalinta xiisada isla markaana uu la kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa sidoo kale uu hadalkiisa intaas ku daray in kulamada lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeyo madaxweyne Waare Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu sii wadi doono isla markaana uu rajo wanaagsan ka qabo in xal waara laga gaaro xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa beledweyne u tagay kuwaas oo ku guuleysan waayay xalinta xiisadaas waxaana xusid mudan in muddo bil iyo dhowr cisho ka aysan wax shaqo ah ka socon xarumaha maamulka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan diiwaangelinta ciidamada degmada Balanbale ayaa la sheegayaa in la soo gabagabeeyay waxaa guud ahaan la soo gabagabeeyay habraaca diiwaangelinta ciidamada qalabka sida oo maalmihii la soo dhaafay ka socotay degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud xafiiska habraaca diiwaangelinta ciidamada qalabka ayaa howshaas waday kadib markii dawladda Soomaaliya heshiis la saxiixatay Al Sunna oo ku biirtay Galmudug
waxaana ciidamada al-sunna iyo kuwa galmudug ay ka mid noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa booliiska. degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa sidoo kale ku sugnaa dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo badankood doonayay inay ka mid noqdaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed lana diiwaan galiyay. xafiiska habraaca diiwaangelinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale degmada Balanbale ka diiwaan galiyay gaadiid dagaal oo lagu wareejiyay dowladda kuwaas oo ay ku shaqeyn doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. maalmaha soo socda ayaa sidoo kale waxaa la diiwaan gelin doonaa ciidamada kala duwan ee ku sugan deegaanka Xeraale iyo degmada Cabudwaaq, waxaana halkaas dhawaan tagay taliyaasha ciidamada militariga, booliiska iyo asluubta kuwaas oo haatan ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga ayaa kala saxiixday heshiis cusub. heshiiskan waxaa dowladda Soomaaliya iyo Turkiga ay ku kala saxiixdeen magaalada Ankara ee wadanka Turkiga, waxaana dowladda Soomaaliya u saxiixay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Aydid, halka dowladda Turkiga u saxiixay mas'uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo lacagta Turkiga. heshiiska ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ku saabsan dhanka dhaqaalaha, waxaana dowladda Turkiga ay sanad kasta lacag ku kabaysaa miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa bogaadiyay heshiiskaas, isagoo dowladda Turkiga ugu mahadceliyay sidii ay mar walba u garab taagan tahay Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya, waxaana la xusuustaa gurmadkii weynaa ay shacabka Soomaaliyeed u fidisay sanadkii 2011 xilligaas oo dalka ka jirtay abaar ballaaran. kadib kulan ay Muqdisho ku yeesheen guddiga amniga ayaa waxa ay ka soo saareen amaro dhinaca amniga oo la farayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda iyo gaadiidleyda ku nool Muqdisho. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Yiriso iyo xubnaha guddiga amniga gobolka Banaadir, waxaana kulankaas uu daba socday kadib falal amni darro oo ka dhacay Muqdisho. amarada laga soo saaray kulankaas ayaa waxaa warbaahinta u sharaxay gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxa uuna sheegay in marnaba magaalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareeska militariga, waxaana qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaaladooda oo mararka qaar lagu arko gudaha magaalada. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa digniin u diray milkiilayaasha gaadiidka sida bajaajta iyo gaadiidka kale, isaga oo sheegay inay gaadiidkooda diiwaan galiyaan, isaga oo sheegay in dadka iska iibiya gaadiidkooda u diiwaan gashan dhibaatadii lagu geystay ayaga mas'uuliyadooda qaadi doonaan. amarka ay soo saareen maamulka gobolka Banaadir ayaa horey waxaa u soo saaray wasiirka wasaaradda amniga, iyadoo aysan dhaqan gelin amaradaas oo horey u soo saaray wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka amniga dalka ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Ukraine. wasiir Cabdinaasir Saciid ayaa laamaha ammaanka ee dalka Ukraine kala hadlay sidii ay labada dal u yeelan lahaayeen xiriir cusub oo ku aadan ka wada shaqeynta arrimaha nabadgelyada, baabi'inta walxaha qarxa, miino baarista iyo ka hortagga iyo la dagaalanka argagixisada. wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale dalka Ukraine kula kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed oo u badan arday wax ka baratay jaamacadaha halkaas ku yaala, isagoo uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka, horumarka ay gaartay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida dhaqaalaha, arrimaha bulshada, siyaasadda iyo amniga. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa Soomaalida ku nool Ukraine ku dhiirigeliyay in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo kana qayb qaataan dib u dhiska dalka. dowladda Soomaaliya ayaa waxay wada qorshooyin ay ku mideynayso ciidamada qalabka sida, iyadoo diiwaangelinta ciidamada qaybahooda kala duwan laga bilaabay Muqdisho iyo xarumo ay ciidamadu ku leeyihiin gobolada dalka, waxaana diiwaangelinta ciidamada qalabka sida oo qayb ka ah amniga guud ee dalka ay ka socotaa magaalooyin ay ka mid yihiin Balanbale, Dhuusamareeb, Xeraale iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Galmudug, waxaana qorshaha uu yahay sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan ammaanka iyo in ciidamada dowladda si midaysan ay u qaadaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in si siman mushaaraadka iyo xuquuqaha ciidanka qalabka sida loo midan doono. warkii oo daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.